Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Soo dhawaada daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada Kaabit Knowledge and Language. Waqtigu haydin wacnaado meel kasta ku sugan tihiin waxaad naga daawanaysaan Kaabit Knowledge and Language. Maanta waxaan idin wadaa cashar aad u xiiso badan oo ku saabsan luqadda Englishka. khaasatan qaybteena aynu soo wadnay qodobkii shanaad ayaan maanta aan ku sii siqaynaa inaan aan cashar ahaan u qaadano waxyaabaha aynu soo bixinay interrogative pronoun-ka ama relative pronouns-ka aynu soo bixinay ayaan sii wadi doonaa. waxaan ka soo hadalnay 4 cashar oo hore ayaan kaga soo hadalnay. maantana waxaan kaga hadli doonaa cashka shanaad ayaan kaga hadli doonaa which ayaan kaga hadli doonaa. saas laajgeed soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada cashka maanta. ka hor intaanan bilaabin cashka waxaan ka codsanayaa inaad videoga like garayso, haddaad ku cusub tahay channelkana aad subscribe ku samayso, saaxiibadaada kalena aad la wadaagto. dhammaan channelkan waxaad ka baranaysaa luqadda Englishka ahayd iyo qaybaha kala duwan ee computerka sida office-ka iyo wixii la mid ah iyo waxyaabaha la xiriira multimedia-ha ama graphic design-ka waxa loo yaqaano. inta ugu badan waxaad ku baranaysaa Englishkii ayaad ku baranaysaa barbilow ilaa bardhamaad qaybaheeda kala duwan oo dhan ayaad ku baranaysaa. haddaad macallin tahay iyo haddaad arday tahay labadaba faa'iido dheeraada ayaad ka heli doontaa casharada tan iyo buugtan aanu halkan kusoo gudbinaynona aad iyo aad ayay u xiiso badan yihiin oo iyaguna waa ku diyaarsan yihiin. haddaad u baahato waad soo dalban kartaa. okay, mawduuceenu aad buu xiiso badan yahay. soo qaado buug iyo qalin insha Allah aan wada socono. which ayaan maanta ka hadli doonaa qodobka shanaad ee waxa loo yaqaan relative pronoun-ka ah. macnaheedu waxa weeye kee ama tee weeye ayaa la yiraahdaa. which macnaheedu waxa weeye kee ama tee, laakiinse waxa weeye waa object iyo waxa loo yaqaano animals. macnaha waxa weeye waxa loo isticmaalayo looma isticmaalayo wixii bini aadanka, laakiin waxa loo isticmaalayo waxyaabihii kale oo dhan ayaa loo wada isticmaalaya. raali ahaada. okay, aan sii bilowno. what is use which maxaa loo isticmaalaa what is use which maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa asking weydiin, questions su'aalo about ku saabsan choice doorasho ama in wax lagu dooransiiyo. dookh waxyaabo aad adigu u baahan tahay in lagu dooransiiyo ayaa loo isticmaalaa. about choice, questions about choice waxa weydiimo su'aalo ku saabsan choice inaad adigu wax aad dooranayso ama lagu dooransiiyo ayaa loo isticmaalaa. meaning-ka macnaha kelmadda Soomaaligeedu waa kee ama tee weeye saan horeba kuugu soo sheegay. definition-ka ama qeexideeda isticmaalkeeda kelmadana waxa weeye waa asking questions about choice weeye. okay, example aan isla fiirino bal example-ada. waxaan usoo qaadanay dhammaan examples-ka halka kaaga muuqda oo idaylkood isugu dhan si aad u fahanto oo aad u barato isticmaalkeeda iyo sida sentence loogu sameeyo labadaba aad u barato. okay, kelmadda example-ka koowaad aan soo qaadanay ama tusaalaha koowaad, which subject do you learn maadadee ayaad dhigataa. which car did you drive gaarigee ayaad wadatay. which car do you drive gaarigee ayaad wadatay. which region were you born gobolkee ayaad ku dhalatay. which region were you born gobolkee ayaad ku dhalatay. which subject do you interest maadadee ayaad xiisaysaa. which subject do you interest maadadee xiisaysaa. which religion do you believe diintee ayaad aaminsan tahay. which religion do you believe diintee ayaad aaminsan tahay. which village do you reside xaafadee ayaad degan tahay. which village do you reside xaafadee ayaad degan tahay. which region gobolkee ayaad do you live aad ku nooshahay. which region do you live gobolkee ayaad ku nooshahay. which district do you stay degmadee ayaad joogtaa. which district do you stay degmadee ayaad joogtaa. which country
were you born gobolkee ayaad ku dalkee ayaad ku dhalatay which country were you born gobolkee ayaad ku dhalatay sorry dalkee ayaad ku dhalatay dalkee country waa dalkii ama wadankee ayaad ku dhalatay which school do you learn something iskoolkee ayaad wax ka dhigataa which school do you learn something iskoolkee ayaad wax ka dhigataa which is better for you to be educated person or ignorant person okay kelmadda halkaasa ku khalada okay calaamada iyo waa ka saari doonaa idin ilaahay which is better for you to be educated person or ignorant person kee kuu fiican adiga inaad noqoto qof aqoon-yahana iyo inaad noqoto qof jaahila which is better for you to be educated person or ignorant person as a dialogue question and answers ayaan iminkana aan u samaynaynaa oo si aad u fahanto jawaabta marka su'aashan aad samayso ama su'aashan lagu weydiiyo si aad jawaabteeda aad u hesho okay marka raalli ahaada harka biyar bariyad jira maanta which subject do you learn maadadee ayaad dhigataa marka lagu yiraahdo jawaabtan aad qaadanaysaa I learn waxaan dhigtaa English Ingiriisi and Maths iyo xisaab which car did you drive gaarigee ayaad wadatay which car did you drive gaarigee ayaad wadatay I drove the red one waxaan watay midkan cas ayaan watay I drove the red one waxaan watay midka cas which region were you born gobolkee ayaad ku dhalatay I was born waxaan ku dhashay in a Seoul region gobolka Seoul ayaan ku dhashay which subject do you interest maadadee ayaad xiisaysaa which subject do you interest maadadee ayaad xiisaysaa I interest waxaan xiiseeyaa English language luqadda Ingiriisiga ayaan xiiseeyaa which religion do you believe diintee ayaad aaminsan tahay ama aad rumaysan tahay I believe waxaan aaminsanahay in a Islamic religion diinta Islaamka ayaan rumaysanahay which village xaafadee ayaad do you reside aad degan tahay I reside waxaan deganahay in xaafad Soomaal village xaafadda la yiraahdo ayaan deganahay which region do you live gobolkee ayaad ku nooshahay I live waxaan ku noolahay Togdheer region gobolka Togdheer ayaan ku noolahay which district do you stay degmadee ayaad joogtaa which district do you stay degmadee ayaad joogtaa I stay waxaan joogaa in Ergabo district degmada Ergabo ayaan joogaa which country were you born dalkee ayaad ku dhalatay which country were you born gobolkee ayaad ku dhalatay I was born waxaan ku dhashay in a Somaliland country wadanka Somaliland ayaan ku dhashay which school do you learn something iskoolkee ayaad wax ka dhigataa iskoolkee wax ka barataa I learn waxaan ka bartaa something waxaan ka bartaa in dabadna iskoolka magaciisa ayaad halkan ku qori doontaa which is better for you to be educated person or ignorant person kee kuu fiican inaad noqoto qof aqoon-yahana aqoon-yahan ignorant person educated person or ignorant person qof jaahila inaad noqoto iyo inaad noqoto qof aqoon-yahana kee ayaa kuu fiican okay jawaabtii waa tan it is better waxaa ii fiican for me aniga to be inaan noqdo educated person qof aqoon-yahana inaan noqdo oo cilmi leh inaan noqdo ayaa ii fiican qof skills leh inaad noqoto aad ayay muhiim u tahay marka waa inaad waqtiga uga faa'iidaystaa inaad noloshaada aad ku horumariso oo aad wax ku barato waaye which is better kee kuu fiican for you adiga to live inaad ku noolaato in a war dagaalka dhexdiisa or ama to live inaad ku noolaato in a peace nabad dhexdeeda inaad ku noolaato labadaana which is better for you kee kuu fiican adigana labadaasna kee kuu fiican which is better for you kee kuu fiican to live inaad ku noolaato in a war meel dagaal ka dhacayo oo la isku dilayo inaad ku noolaato or ama to live inaad ku noolaato in a peace meel ay nabadi ka jirto
labadaa kee kuu fiican inaad ku noolaato. It is better waxaa ii fiican for me aniga to live inaan ku noolaado in a peace nabadda dhexdeeda inaan ku noolaado ayaa ii fiican. sababtu maxay tahay? Because maxaa yeelay peace nabaddu bring waxay keentaa progress horumar ayay keentaa and prosperity iyo barwaaqo ayay keentaa. While halka the war dagaalku brings uu keeno death dhimasho and destruction iyo burbur iyo barakac uu keeno dagaalku. Which is better for you to live in a peace or to live in a war? It is better for me to live in a peace because peace brings progress and prosperity, while the war brings death and destruction. Which language luqadee ayaad do you speak aad ku hadashaa? Which language do you speak luqadee ayaad ku hadashaa? I speak waxaan ku hadlaa Somali language luqadda Soomaaliga ayaan ku hadlaa. Which language oo luqadee ayaad do you learn aad dhigataa luqadee ayaad barataa? I learn waxaan bartaa ama aan dhigtaa English Ingiriisida an iyo my mother tongue iyo weliba afkayga hooyo ayaan bartaa. I learn waxaan bartaa English and my mother tongue Ingiriisida iyo afkayga hooyo ayaan bartaa. Okay, goodbye, see you again too. waxaan u malaynayaa inaad mawduucan aad fahantay. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad walaalahaaga kalena la sii wadaagto. haddii aad u baahan tahay kan oo buug ah casharada tan oo dhammaystiran haddaad u baahan tahay please call me waad ila soo hadlaysaa insha allah idin ilaahay. aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin daawashada casharada Kaaba Technology and Language. khaasatan waan kaaga mahad celinayaa haddaad halkan ila soo gaadhay sida quruxda badan aad ila socotay. insha allah intaynu cashka xiga isugu iman doono aad u xiiso badan waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.